السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلهانتين باقيارته وذا نقدر أنا يساي هالكن وأمريك ميديا. قطبة وركان وقدر قرن عاون كوهيننا وحى كم ده دجال حوجن ودحمري إذا ماذا ذلك إثيوبيا وقرب كيليا كوالتريا يا ذلك السودان. دولة السودان والشركتين أي نرشح كوقتين إذا ما وده شيء ذلك سيالتريا أين لو ذاك دونا صحافة فشل كوي مد الشركة وكوبا قي مدحوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو حفيز كروبله أي وركسو صاري كلنكي أي لفريستان معارض كعاوة هشيس معقول قلة ودحمر إياه سيد الشيء يو ضلك تركيا يودن كمصر سرقال سريه وكتر سن يد جرجار كدقدق عنده دون كا ولكم بير رجزراها ضلك سيتوبيا رجزراها ضلك سيتوبيا وحو كيري قضبة سيا قضبة كلو ديرada iyo barnaamijkan ku maqli doontaan hadii ay baraali ka noqdo isku soo noqod wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo sidaan hore idin ku sheegay dagaalo culus ayaa laga soo sheegaya xuduudka u dhaxeeya dalka Itoobiya iyo dalkaasi Suudaan halkaasi waxa la sheegaya dagaalo xoogan inay ka socdaan khasaaraha halkaasi ka dhashay ma xaqiijin karo balse waxa la xaqiijinayaa in dagaal aad u xoog badan oo halkaasi ka socdo khaasatan gobolka Liidadaal Fashaqa oo ay sheeganayso dawladdaasi Suudaan inuu ahaa dhul kaga manaa dalkaasi Itoobiya dhanka kale ciidamada Suudaan ayaa sheegay inay wax yar u jiraan inay gaaraan cirifka ugu dambeeyay dhulkii kaga manaa dalkaasi Itoobiya journal ama saxaafad ku hadla afka ciidamada militariga dalkaasi Suudaan ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan Itoobiya iyo dalkaasi Eritrea ee ka dhacaya xuduudka halkaasi inay guulo waaweyn ka gaadheen journalka ay ku qoreen ama ay ku daawaceen ayaa waxa la yiraahdaa Sudan Post waxaana ay sheegeen in 5 magaalo ay gacanta ku dhigeen waxaana ay sheegeen oo kale inay gebi ahaanba dhulkii Itoobiya kaga maraa intiisa badan ay gacanta ku hayaan haddii dagaalkan ay Itoobiya ay keeni weydo waan iyo wada hadal ay ku soo celinayso dhulkii ku maqnaa dalka Sudan ayaa saraakiil u hadashay waxa ay sheegeen in ay suurtagal tahay inay gacanta ku dhigaan caasimadda gobolka Axmaarada dhanka kale Suudaan ayaa sheegtay in ay nolosha ku qabteen ciidamo ka tirsan dalkaasi Eritrea oo dagaalka ka barbar dagaalamayay ciidamada Itoobiya bariyihii u dambeysay waxaa jiray in dawladdaasi Eritrea ciidamadeeda militarigu ay ku sugnaayeen gudaha dalkaasi Itoobiya iyagoo ka dagaalamaya ama ka barbar dagaalamayay dagaalka ka dhacaya gobolka Tigreega taasina ma ahan mid la caqiirsan karo in ciidamada Eritrea ay qayb ka noqdaan haddana dagaalka ka dhacaya Suudaan iyo Itoobiya u dhaxeeya ee halka xuduudka ka socda dawladda Suudaani waxa ay sheegeen in ay soo bandhigi doonaan ciidamada ay nolosha ku qabteen ee dalkaas Eritrea waxa sidoo kale dawladda Suudaani ay sheegtay in wax kasta oo dhaca aynan marnaba ka wada galaynin wada hadal gobolka Al-Fashaqa ee ku maqan gudaha dalkaas Itoobiya sidoo kale waa isla dalkaasi Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta la fadhiistay ama kulan la yeeshay sargaal sare oo ka tirsan hay'adda gargaarka cunnada ee adduunka oo lagu magacaabo David Beasley oo ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira caqabada ka taagan gobolka Tigreega ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ayaa hay'adda cunnada gargaarka ee adduunka uga mahadceliyay dadaalada ay ugu jiraan in ay qayb ka noqdaan in la taakuleeyo dadka Tigreega ee gobolkaasi ku rafaadsan ama ay dagaaladu saameeyeen sargaalkani hay'adda matalayay ayaa sidoo kale sheegay oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya kala hadlay in uu ogolaado mar kasta iyo goob kasta oo wax ka dhaco in gargaarka iyo hay'adaha caalamiga ay si xor ah uga howlgali karaan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ogolaado ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay oo yiri marna ma hor istaagayno hay'adda u gargaarayso dadka anaga halkaasi ay dagaaladu ku saameeyeen ee gobolkaasi Tigreega la dagaalankan oo la dagaalamayno TPLF iyo ciidamada duurka ku jira ee jabhadeynaya ay naga hor istaagi mahayaan mar raba in aanu dadka anaga Itoobiyaanka aanu taakulayno hay'adaha xuquuqul islaamkuna waa ay u fasaxayeen buurin inay qayb ka noqdaan gargaarka lagu gaarsiinayo dadka shacabka halkaasi ku barakacay dhanka kale hay'adaha adduunka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya uu galay dambiyo dagaal oo ka dhan ah bini'aadanimada waxaana caalamku uu hadal hayaa sida dalka Mareykanka iyo qaramada midoobay ay sheegeen
in ra-iisul wasaaraha Ethiopia lagula xisaabtami doono dhibaatada ka dhacday gobolkaasi Tigrayga iyo xasuuqa halkaasi ka dhacay. hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in xasuuqa gobolkaasi Tigraygu oo ku baaba'een dad shacab ah oo rayidan waxba galabsanin oo labada dhinac ay ku dagaalamayaan mid ahayn. taasina waxa ay sheegtay hay-aduhu in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia hagaadha in lagula xisaabtami doono arrintaasi. dhanka Soomaaliyana haddii aan u leexano waxaa markii saddexaad fashil ku yimid shirkii wada tashiga ee dhowaan uu cilaamiyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo la rabay inuu ka dhaco caasimadda Muqdisho. shirkan oo lagu waday inuu furmo maanta oo Khamiis ahayd kuna beegnaa 4 bisha Maarso ayaa waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay dalbadeen in waqti la siiyo shirka oo ra-iisul wasaaraha uu dhamaysto shirarka goosgooska ee uu kula jiro midowga musharaxiinta kadibna ay suurtagal tahay inay markaasi ay ka soo qaybgalaan shirka halkaasi lagu qabanayo Soomaaliya ee madaxweynuhu ku dhawaaqay laguna xalinayo khilaafaadka hareeyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa dalka ka maqan madaxweynayaasha waa labada madaxweyne maamul goboleed madaxweynaha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku sugan gudaha wadankaasi Turkiga halkaasi oo ay safar gaaban ku gaadheen. shirkan la rabay inuu maanta halkaasi ka furmo caasimadda Soomaaliya ee madaxweynuhu iclaamiyey ayay u eg tahay in madaxda maamul goboleedyada ay suurtageli weydeen ay ka soo qaybgalaan shirkaasi. waxayse sheegeen in waqti la siiyo ay ku soo tabaabushaystaan oo ay ku yimaadaan caasimadda dalka looga ramiyo kadibna halkaasi ay shirka ay qayb kaga noqdaan. waa isla arrimaha Soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha Roble ayaa shaaciyay goorta uu dhacayo wejiga saddexaad ee shirka u socda isaga iyo midowga musharaxiinta ee Soomaaliyeed. afhayeenka dowladda Soomaaliya ee waqtigeedu dhammaaday Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa qoraal kooban oo soo saaray waxa uu ku sheegay in mar saddexaad loo balansan yahay shir ay u wada fadhiistaan xukuumadda Roble iyo midowga musharaxiinta Soomaaliyeed. 2 shir oo hore ayay ku galeen gudaha garoonka airportka Aadan Cadde. waxaa sidoo kale uu sheegay caawa oo Jimco soo galayso in ay u balansan yihiin shirkii saddexaad inuu halkaasi ku dhaco laguna la fagro sidii loo qaban lahaa doorasho ummadda Soomaaliyeed u dhan tahay oo uusan ka imanin khilaaf. dowladdan waqtigeedu dhammaaday ee Soomaaliya ayay u eg tahay inay la gaada dhacayso khilaafaad culus oo kaga imanaya dhinaca maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta oo doonayay in doorashadu waqtigeedu qabsoonto. dowladda Soomaaliya ayaa mar shir u qabanaysa midowga musharaxiinta una ballamisay madaxda maamul goboleedyada inay shir isugu yimaadaan magaalada Muqdisho balse waa ay suurtageli weyday oo waxa ay sheegteen madaxda maamul goboleedku cudurdaalo in qaybo ka mid ay ku maqan safar kadibna ay diyaar u yihiin shirkaasi markii ay waqti helaan inay ka soo qayb galaan haddii ay barnaamij ka noqdo. barnaamijkeena intaas ayaan ku soo afmeeraynaa haddii ay barnaamij ka noqdo intaynu mar kale ku kulmayno waa anagoo mareega oo idin leh salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.